dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maartay dadka ah iyo annaka waana 10 waana la hubinayaa 10 cisho in dib loo dhigo go'aankaas maadaama saxiix madaxweynaha uu dhacay yow ka yimi ma adiga go'aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xageeyana dambiilo ahaa 10 cishaana la baaraya warbaahintu meesha ma joogin lagu qisaasay maxamed Allah naxariistay maxaa cadeynaya baraha bulshada hadallo kala duwan baa ku jira in nimankii la dilay aysan ahayn iyagii kiiska Caysha mooyada Allah naxariistay bal maxaa cadeynaya in arrintaasi nimankii ay adiga Ilyas ahaan in nimankii goobta la geeyay dilka lagu fiiyay ay yihiin nimankii Caysha Allah naxariistay dilay nimankii Caysha dilay waa wada qaanay daris baan ahayn waan wada hadalnay xataa way saafinay afis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiraan baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay labadiiba adigu goobjoog ma ahayn meesha lagu dilay goobjoog baan ahaa xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cadeymo iyo hawl waxa jiray in ay isaga walaalkiisu la yiri DNA ga iskaga mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yiraahdo dib loo noqdo oo la yiraahdo laba walaalo DNA ga isku mid bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaddu ay dib ugu laabato go'aankaas DNA gu abiyo hooya wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadha ku dhex jira ninkaas oo kufsiga ku dhex jira laftigiisa lacaankiisi baa ku jira shaawadiisi baa ku jirta dhiigiisi baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta maadiga fuliyay ehelkaaga qoyskaaga mise dawladda ayaa u bandhigtay nimankaas dawladda ayaa qisaasta annaga fushanay dawladdu waxay tirad fushada la yiri sharciga islaam weeyaan annaga fushanay waxay ugu dambeyn barnaamijkan iyo qaabka uu dhacay dhinaca dawladda iyo aragtida dareenka ku aadan ugu dambeyn dareenkaygu aad iyo aad buu faahan yahay Soomaali weyn waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay Caasha Ilyas aadan ka galay waa la toogtay laba ninna waa dambeeyaa oo 10 cisho ayuu xirnaanaya haddii ay noqoto in ninkaasi ay laga wada hadlo oo maxkamaddu ay go'aankeeda gaadho adiga Ilyas ahaan qorshuhu ma kugu jiraa ninkaas inaad cafisid haddii kiiskaas lagu helo oo aad magdhow ka qaadatid ama aad qisaasatid baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal yimaadana waa arkaynaa laakiin 10 insha Allah dib waa xiran yahay fariin maxaa uga diraysaa guud ahaan dadka ku dhageysanaya oo telefishinada ku daawanaya adigoo si faahfaahsan uga hadlaya arrintan waxay ahayd arrin muxuu ahaayey ummadda oo dhan ay sugaysay maantana aan filayno in ay noqon doonto lagu qanco aysan dhici doonin gabar dambe oo muxuu ahaayey ay dhalinyarada ay fallocaas kula kacaan marka guud ahaan adigoo soo xoorinaya Ilyas kaaga mahad celinaynaa bal guud ahaan dadka waxa u cabirtaa kiiskan sidoo ahaa iyo in maxaa laga baran karaa kiiskan waxaa laga baranayaa 10 xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadayaan oo dhacay kiiskan waana la badbaadayaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaya gidwood eedaysanaha saddexaad Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame ayuu sheegay Ilyas in dib loo baari doono muddo 10 cisho isla markaana ay ku qanci doonaan wixii go'aan ee ka soo baxa maxkamadda Cabdiftaax oo saakan la toogtay ayaana 17 bishii August ee sanadkii 2019 ka hor qirtay maxkamad ku taalla magaalada Garowe inuu dambigaasi galay isaga oo xilligaasi cadeeyay doorka uu ku lahaa Cabdiftaax si fiican laga fur dambiga lagu soo eedeeyay oo maxkamadda ku wax xukumaan maxkamadda salaam maanta hor taagan tahay fursad bay ku tahay ma gashay mise ma gelin taas waa soo yes wagash yes dambiga wagash si dad baan u galay ku dhameystirayaa suga qof hadli kara ma jiro ciidamada amniga ma aha meeshan masraxiya ma aha Cabdiftaax waa maqlaysaan mamiir qabtaa maskaxdaadu ma tamam boqolkiiba soo ma wuxuu qirtay dambiga inuu galay waa maqlayseen dhammaan shacabku soo maqleen aamus hadalku waxaan ka rabnaa markaa faahfaahin baan rabaa inaan waxaan ka rab ya
waxaan rabnaa inuu cabdifataax naga siiyo su-aal shan kuudina waxda cabdifataax maadaama ilaahay uu fududeeyey baa dembiga aqratay iyo wixii ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta meel ay joogaanba muddo tiro badan geliyey dhibaatooyin iyo hawl iyo mucjiso ay noqotay gabar yar dilkeed jarjarideed kufsigeed dembi intaa laakiin la galo maxkamadda horteeda maanta ka qiratay waxaan kaa rabaa sida dembigaas aa u gashay cidda kula gashay waxa sababay iyo meesha ku gashay fursaddaas haystaa ummadda u sharax maxkamadda u sharax waa mahadsan tahay su-aal baa idi weydiisay mudana guddoomiye si degan oo aan ka fiirsaday baana kaaga jawaabay eedeymo badan baa aniga la ii soo jeediyey maa hal eedeyn xafiiska eerlaalintu wuxuu ii soo jeediyey anigu kufsi baan galay xafiisku xeerlaalintu wuxuu ii soo jeediyey kufsi wuxuu ii soo jeediyey dil wuxuu ii soo jeediyey afduub wuxuu ii soo jeediyey khalkhalgelin amni soo sidaa ma ayna xareen okay anigu kufsi baan galay mudana guddoomiye sharxad ka bixi kufsiga ay saa u gashay iyo cidda kula gashay wax dil oo aan galayna ma jirto waa ku maqalay kufsi baa gashay yaa kufsatay caaisha kufsatay subxaanallah noo sharaxaad naga sii su-aale ii weydii kufsigu noocuu ahaa yaa kala qayb qaatay maxaa shaydaan baa kolley sabab u ahay maxaa khasbay waxa inaad geysatid anigu waxaa weeyaan kufsigaasi waxaa iga dhaadhiciyey igu qanciyey inaan galo goobjoogna ka ahaado cabdishakuur maxamed dige cabdishakuur maxamed dige subax buu dhacay gurigiisuuna ka dhacay 2 saac subaxnimo ilaa 2 saac bar caaisha isagaa afduubay isagaa gurigiisa geeyey anigu waa uu soo wacay keliya cabdishakuur maxamed dige waxaa degan isaga iyo hooyadiis may aniga isagaa ii yeeray yidhi waan kuu baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeeda waan is aragnay anoo gurigeyga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi imo anoo gurigeyga hortaagan waan labistay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol irid banaanoo aniga iga soo horjeedaan waxaan u tegey isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiqa waxa aan ka hadlayo anigu cid i khasabtay cid waxaa weeyaan ii hanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxa aan ka hadlaya wayse qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogey waxaa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto cabdishakuur isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa irid bannaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib